بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل كان وحن يدين سو غدبيننا عجلدii saddexaad ee siirada rasuulka salawaatullaahi wa salaamu calayh waxaana inoo soo jeedin doona Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun. siyaabka kan culimada qaarkood waxay ku tilmaamaan ku macnawiya laakiin labadaba umuumankiisa inuu ugu qaadayna wa siyaabak dharkaaga fatahhir taahirso dharkaaga iyo jidhkaaga iyo najaasaadka iyo mustaqdiraadka ka fogow. idan haddii muuqaalka sare uu yahay in la tahiro waxaad iska garanaysaa muuqaalka hoose in la tahiraana inuu ka weyn qalbiga in la taahir yeelo oo kow shirkiga iyo najaastiisu. shirkigu waa najaaso, inama almushrikuuna najas baa ilaahay yidhi, najaaso ka weyni gaalnimo ma jirto. idan najaasaadka macnawiga abaa ka weyn najaasaadka xisiga ah. yani najaasaadkan layska uskagan iyo kaadidan iyo xaarkan iyo waxa kasii daran oo ka qurmuun oo ka kudaafad badan kuwa macnawiga ay ugu horeysa gaalnimada iyo munaafiqnimada iyo wixii la halmaala. saa awgeed baa alla wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala wathiyaabaka fatahir, dharkaaga taahir yeel oo taahirnimadaasi ta muuqaalka sarena lagaa rabo ta qalbigaana lagaa rabo oo ay ka mid tahay inaad shirkiga ka fogaato oo ay ka mid tahay akhlaaqda xun dhammaanteed inayd ka tagto. walidalik baa iyada ilaahay gaar usii tilmaamo waxaa la yidhi wrujsa iyo wrijsa labadaba waa laba qiro saxiixe. wrujsa fahjur, xumahana rijsigu asliyan waa cadaabka ama sakadka ilaahay cadaabkiisa iyo cadhadiisa wixii keenaya o dhanna ka fogow. waxa keenaya ilaahay cadhadiisa iyo cadaabkiisuba waa macsidiisa, waa ilaahay oo la caasiyo kaana ka fogow baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala. idan qofka muslimka ah waxaa kaloo alla uu nebiga yidhi walaa tamnun tastakir. masaladanina waa masale u baahan ahlu dacwa aayaadkan inay aada sharxooda u fahmaan ba ku fiicantay. walaa tamnun tastakir, ha galladaysan baa wax la yidhi adigoo badsiinyo ku raba. yani waxaa la tilmaamaya waxa kan inaad ilaahay dartii u qabato, ikhlaas inaad u qabato. hadduu noqdo tilka bitilka waxaad adna ku rajaynayso markaad waxaan samayso dadku iyana inay ama ku weyneeyaan ama magac kuu yeelaan ama aad hanti kaga heshid ama aad caynka kaga heshid, ajarkii aakhira waad waayeysaa. walidalik ba waxaa ku aragteen qur-aanka inta badan maa asalukum calayhi min ajrin isagoo nebi waliba leh. nebi waloo lasoo dirayba wuxuu leeyahy war anigu hadda dan gaaro aan idinkaga leeyahy ma jirto. ilaahay ku xidhma markaan idin leeyahy, ilaahay ka cabsada markaan idin leeyahy, danaan idinkaga doonayaa ma jirto. idin melihi madax iga dhigta, idin melihi daba socda, idin melihi wax igu siiya, idin meli jaah iyo mudnaan iyo waxba toona idinkaga dooni maayo. waa sunat alambiya. ducadda waxa fiican markaasi dadku inta badan bini aadamku tuhumu iska qabaa. war ninkan waxaan uu idinku yeedhayo ama sharcigan uu leeyahy raacun arma isaga dani ugu jirtaa, ama armuu madaxnimo ku doonaya, ama armuu sidan ku doonaya. armaadaasoo dhan waxay ku fiicantahay in marka hore la sheegay inaad waxba kaga doonaynin. walidalik baa ilaahay nebiga markuu u bilaabayeyba waxaa la yidhi walaa tamnun tastaktir, ha galladaysanin adigoo badsiinyo ku raadinaya oo wax kaga doonaya. walirabbika fasbir baa ilaahay ugu gebagabay. ariiqan haddaad marto waxa hubaala inaad dhib badan la kulmi doonto. walidalik wuxuu u baahan yahay sabir. sabirku waa waxa shay inuu midho dhaliyo sabirunbaa u asala. waxaan loo sabrinin ma midho dhaliyaan. wax kasta oo la rabo midho la goosto in laga helo waa inuu noqdaa wax loo sabray oo loo gaadiiday. laakiin haddaad xamaasada hore iyo xufxufta hore ku rabto wax waliba inay ku saxmaan, waxba kuma saxmaan. walidalik baa ilahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala walirabbika fasbir. alle ama rabbigaana wixii dartii kugu soo gaadha ee dhib ee mashkilada kaa hor yimaada taana u sabir baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala oo in badan u dulqaado. aayaadkani markaa waxay tilmaamayaan waa laba qaybood. qaybi waxa weeyaan balaaq iyo indaar, laleeyahay dadka waxu sheeg. qaybta labaadna waxa weeyaan wixuu isagu ku dhaqmi lahaa iyo qaabku noqon lahaa. qof kasta oo raba inuu dad waxu sheego oo diin xambaaraana waxaa looga baahanya inuu si wanaagsan u fahmo. aayaadka koowaad ee risaaladii nubuwada ka hadlaya runtii wax badan bay dadka u taageerayaan. nabiga calayhi salaatu wasalaam aayaadkaas ayaa alla ku soo dejiyey. dabeetana noloshiisii waxaynu leenahay 20 sano in ka badan ama dhowr iyo 20 sannadood ayuu qaa'im ahaa oo aanu raaxaysan oo u taagnaa inuu alle subxaanahu wa tacaala
diintiisa dadka ugu yeedho oo dhibi ka soo gaadhay oo wax waloo ka soo gaadhaba uu ogolaa inuu ugu dulqaato. waxay culimmadu halkan tilmaamaan waxoogaa ay kaga warramayaan waxyiga iyo qaababkii uu nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ugu soo degay. waxyigu saynu hore usoo sheegnay waxa ugu horreeyey qayb ah alru'ya saadiqa, in riyo dabeetana dhacdadaasi uu sideeda u arki jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu riyoodo ah. qaybta labaad waxay ahayd in uu malag qalbigiisa ku afuufo, oo waa kii nebigu xadiidka matalan saxiixa ku tilmaamayey ina ruuxu اlqudus nafata fii rawci anahu lan tamuuta nafsu xataa tastakmila risqaha faاtaquu اllaha waajmiluu fi طalb wla yaxmilanakum istibطaaءu الrisqi calى an taطlubuuhu bimacصiyaة اllah fainama cinda allah la yunaalu ila biطaacatih. yani nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi ruuxu lqudusku oo malakuljibriil ah wuxuu rawcayga ama qalbigayga wuxuu ku afuufay inaan nafina go'i doonin arsaaqdeedu ay dhammaysato mooyaane. arsaaq weligaa ha ka warwari, intii lagu katibay adigoo dhammaystira mooyaane naftu kaa bixi mayso kuna weydaaran mayso. ee ilaahay ka cabsada buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam, oo doonistana fiicnaysiiya. xaaraan iyo xalaal midkaad ku raadisaba intii ka badan mayso. laakiin wuxuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ajmilu alab, doonista wanaajiyo xalaal ku raadiya, oo risqigaa naga raagaya yuu idinku kalifin inay ilaahay macsidiisa martaan. ilaahay agtiisa waxa yaalla arsaaqda dee ilaahay baa bixiya, ilaahay agtiisa waxa yaallana dee isaga raalli ahaanshihiisa lagu doonaa. ilaahay inaad wax ka doonto haddana aad doonto inaad macsidiisa kaga maroojisataa way adagtay. idan maadaama ay gacantiisun ku jirto cidda wax laga doonaya isaga un tahay, waxaa habboon inaad si fiican uga doonto oo si xalaala aada uga raadiso. idan xadiidkaasi wuxuu tilmaamaya u nebigu leeyahay rawcayga ama qalbigayga ayaanu malagu ku afuufay. waxaa kaloo qaab saddexaad uu nebigu waxyiga ula kulmi jiray ah inuu malagu ugu yimaado ka rajul isagoo ah oo si caadiya ula hadla oo saxaabada ag joogtaana ay maqlaanba, sidii xadiidkii cumar ee macruufka ah wada garanaysaan ee uu lahaa nin marya cadcadsitoo caynkaasoo soo galayo dabeetana uu ag fadhiistay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo wax weydiiyo uga jawaabo. markii dambe uu ka tegayna uu nebigu ku yidhi kaasi wuxuu ahaa jibriil oo diintiina idin baraya. oo xataa bacdu saxaaba ay leeyihiin dixyat ilkalbi saxaabigii la odhan jiray suuradiisoo kale ku iman jirayba. qayb afraad baa jirta oo uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam intay saxaabadu weydiiyeen siduu waxyigu kuugu yimaada, ayuu wuxuu yidhi mila silsilat ljars, dawanka yeedhistiisoo kale mida oo dhawaq kulula, waana nooca nebiga ugu adkaan jiray calayhi salaatu wasalaam. noocaas markuu waxyigu ugu imanayana xataa iyadoo qabow oo baraf ku dhacayo ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam dhididku dacladiisa ay ka di'i jireen, oo hadduu awr fuushan yahay ratigu wuu cuslaan jiray oo wuu fadhiisan jiray dhulka. bale axad saxaaba zayd waa kii tilmaamayey maalin maalmaha ka mida iyadoo bawdada nebigu ay saarantahay buu leeyay, yani adinka nebigu isagoo igu tiirsan ayaa waxyigu bilaabay inuu kusoo dego buu leeyay. adinkiisiibaa intuu igu cuslaaday ayaan xeji kara ilaa bawdada ay iga kala jabi gaadhay buu leeyay, adinkuba way kala jabi gaadhay. waana noocu ugu adkaa ee nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu waxyigu kusoo degayo. nooc shanaad baa jira uu ugu soo degi jiray oo ah inuu suuraddiisii asalka ahayd uu ku arkaba. taasina iyadoo laba gooro qurun bay dhacday. nebiga calayhi salaatu wasalaam malakuljibriil suuraddiisii asalka ahayd laba jeer unbuu ku arkay, sida suuratu najmi baa ilaahay kaga warramaya. laba jeer unbuu kula kulmay. waxaa ka mida bay yidhahdeen waxyiga siyaabuu nebigu kula kulmay in uu alle subxaanahu watacaala u waxyooday fawqa asamaawaati sabc. waa markii la dheelmiyey alisra walmicraajkii markii nebiga la dheelmiyey calayhi salaatu wasalaam ee malakuljibriil meel go-an uu ku hadhay wuu dhaafay nebigu calayhi salaatu wasalaam cinda sidrati lmuntaha wixii loogu soo waxyooday waajibaadka salaadu ay ka mid ahayd iyana qaabka gedisan bay ahayd. xadiidu lisra oo masaa'ilka uu sheegayana waxa weeyaan inuu alle toos ula hadlay nebiga calayhi salaatu wasalaam sidii nebi muuseba uu tooska ugula hadlayay. siyaabahaasi waa siyaabaha ay tilmaamaan inuu waxyigu nebigu ugu soo degay. mushaafaha miyuu u qaatay, miyuu isagoo alle arkaya subxaana watacaala la kulmay? masaladaa salafku waa isku khilaafsan yihin oo waxay ka dhambataa qadiyadda ah nebigu alle ma arkay mise ma arag habeenkaasi la dheelmiyey. laakiin sida saxiix ee raajixa ahi waxa weeyaan inaanu arag.
markaynu intaa soo dhaafno nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhahaa muddo ayuu diintii faafinayey laakiin waxa uu faafinayay muddadaasi hoos muddadan uu hoos u faafinayay yacni muu iclaansan ee dadka ayuu dooranayay wuxuu dooranayay dadka caqliga badan leh dadka dadku wax ka maqlayaan dadka isaga wax ka dhegaysanaya dadka rumaysan ee usilay way ku raacayaan markiiba mujtamac ayuu kala dooranayay markaasi fardi fardi iyo qof qof iyo midhmidha ayuu wax ugu sheegayay muddadaasi intay ahayd wax sanadoo saxiix kuma soo aroorin inta badan dadku waxay sheegaan 3 sanadood laakiin 3 sanadood waxa sheega waaqidina waa mutaham iyo ibn isxaaqna biduni sanad buu ku soo arooriyay marka ma soo aroorin wax xadidaya baladari ninka la yidhahdo isna taariikhda qora 4 sanadood buu sheegaa ala kulli xaal in waqti noocan ay ku socotay jirtaa waa xaqiiqa iyada la iskuma khilaafsana ilaa intay nusuustii dambe waandir cashirataka alaqrabiin ay soo degaysaa ama fastax bima tu'mar mida tirahdaba aayaadkaasi intay ka soo degayeen ama taxdiidka waqtiga ah culamada taariikh inta badan 3 sano bay sheegaan laakiin min hayth alhadith hadaynu sanadka eegno ma suguna sanad ahaan waqtigaasi uu nebigu sirriyada wuxuu waday ee uu hoosta wuxuu waday dad badan ama dad waxoogaa ayaa diinta aqbalay waxaynu naqaanaa cumuuman ciddii ugu horeysay nebigaba dejinaysay ee sheegaysay inaanu bele la kulmayna waxay ahayd khadiija ficlanna waxaynu leenahay khadiiji ciddii ugu horeysay oo saabiqiinta islaamta ayay ka mid ahayd waxaa kaloo cidda saabiqiinta rumaysay nebiga ka mid ahaa sida xadiidka tirmidi uu sanadka saxiixa ku warinayo cali ibn abi aalib oo la yidhaahdo 10 jir meelahaasu ahaa wiil yar ahaa dadyawga hore uu rumeeyey waxaa ka mid ah zayd ibnu xaarisa saxaabigii la odhan jiray ee uu nebigu calayhi salaatu wasalaam markii hore tabaniyey ka caadadii carbeed siday ahayd zayd ibnu xaarisa yani wuxuu ahaa nin isagoo meel maraya baa la afduubay dabeetana waa la qabsaday waa la gaday addoonnimaa loo iibsaday khadiija akhiiran iibsatay dabeetana nebiga calayhi salaatu wasalaam bay siisay nebiguna wuu tabaniyey markaa tabanigu waa caada aljaahiliya intaan qur-aanku soo degin suurat alxazaab aayaadkii ku jiray tabaniga mamnuucayay qofku intuu qof ilmo qaato inuu ula dhaqmo sidii ilmo uu dhalay oo looguma abtiriyo carabta caadada waa iska lahayd yani ilmo asliyan aanu dhalin ayuu korsanaya haysanaya ilmahaasaa uu qaadanayaaba dabeetana waa loogu magac daray waa kan gaaladu ilaa hadda isticmaashay adoptionka ay ku tilmaamaan fi shariica laakiin ma banaana oo markii dambe waxyaa soo degay diidaya masaladaasi waa walaaladiin le islaamnimo ku koriya laakiin qofna yaan aabihii laga dafirin ciddii dhashay unbaa dhashay wiilkaasi oo nabiga calayhi salaatu wasalaam gurigiisa ciddii joogtaya isna wuu islaamay waxaynu odhan karnaa cumuuman xaafadii nebiga calayhi salaatu wasalaam dadkii joogay waxay ka mid ahaayeen dadkii ugu hor islaamay hadduu yahay cali uu nebigu korinayey hadduu yahay khadiijo xaaskiisiiya hadduu yahay zayd ibnu xaarisa oo ah ninkaasi uu nebigu tabaniyey xataa waxaa la tilmaamaa baraka umu ayman islaantii la odhan jiray oo iyana dee ahayd baa islaantii uu uga dhintay addoon aabihii uga dhintay oo uu haystay islaan xabashiyada bay ahayd islaan madow oo xabashiyada laakiin waxay ahayd dumarkii dumarka ugu khayr badnaa mid ka mid a kuwa dadku nebigu aadka u jeclaana way ku jirtay saxaabadii waaweynaaye macruufka ahaana way ku jirtay umu ayman islaantaa la odhan jiray waana islaantii nebiga soo korisay ee soo xadaanaysay yani may nuujin laakiin way xadaanadiisa ayay ka qayb qaadatay waana usama islaantii dhashay usamata bnu zayd iyada lafteedu dadkaa hor islaamay bay ku jirtay khaarija baytihi markaynu eegnana dadka kale ciddii ugu hor islaamtay waa abubakr sidiiq saxaabiga la odhan jiray oo ay markii horena saaxiib ahaayeen waa dadkii ugu horeeyey ee islaama yaa u hor islaamay marka la xadido riwaayaad badan oo kala gegedisan baa soo aroora siday isugu xigxigeenna riwaayaad kala gedisan baa soo aroora walidalik bay culamada qaarkood waxay isku dayeen inay jamciyaan waxaasoo dhan ay ku jamciyaan fikrad odhanaysa dumarka khadiija ugu horeysay caruurta yaryar cala ugu horeeyey addoomaha dadkii ahaa zayd baa ugu horeeyey raggii waaweynaa ee mudakarkaana abibakar baa ugu horeeyey waa marka nooc min jamc ay isku dayayaan in loo ururiyo abibakar dadkan u horeeye islaamay inuu ahaa ibnu kahiir maalan wuxuu ka istinbaata xadiidkii sheegayay maalintii intay saxaabadu
abi bakr iyo axad saxaaba baa murmay waxaan rajaynayaaba inuu ahaa cumar bin alkhaaab abi bakr khayr allah siiyo saxaabi weyn buu ahaa saxaabadana dee muslimiintana nebi maxamed dabadii ninka u fadli badan buu ahaa lakiin nin aada u kulul buu ahaa markuu cadhoodo nin aada u sharaarad kulul ayuu ahaa marka maalin bay isqabteen cumar waxoogaa baa la yaro murmay dabeetana abi bakr oo yaro xanaaqsan buu nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka cadhooday in abi bakr laga cadhaysiiyo dabeetana wuxuu nebigu ku lahaa in allaha bacatanii ilaykum faqultum kadabt waar ilaahay baa dad iyo ikiin soo diray buu yidhi dabeetana waxay igu tidhahdeen bu yidhi been baad sheegaysaa abi bakrna waa runtaa bu igu yidhi run baad sheegaysaa ii daaya buu lahaa abi bakr yani nebigu calayhi salaatu wasalaam abi bakr si gaar ayuu ula dhaqmi jiray walidalik buu saxaabadoo dhan lahaa abi bakr marnaba gaadhaysaana iska dhaafa ninkan hala ii daayo abi bakr markaa waxay leenahay ragga uga hor islaamay buu ka mid ahaa kadib abi bakr ayaa isna sacyiyey oo islaamka dadka ugu yeedhayay qofka muslimkaa dhaqanka lagu yaqaana waxa weyaan wixii khayre soo gaadha muslimiinta kalena wuu gaadhsiiya islaamku saasuu ku faafay islaamku ma faafiyaan culama un yani culamadu waa ahlulcilmigii masaa'ilka cilmiga iyo wixii diinaya cilmiyaa la weydiiyaa laakiin qof waliba uu garanaya inuu dadka ku yidhaha war laa ilaha illa allah dha iyo alla ka boqo iyo ilaahay caabud iyo macsida iska daa qof aan garanayni ma jiro idan qof kastaaba hadduu rabo inuu intan dadka gaadhsiiyo waa gaadhsiin karaa bal in aad wada garanaysaan baa jirto in badan oo aan garanayni jirto haddaad rabtaan in salaada la barto inta masaajidka joogta salaada saa loo tukado badiba waa taqaana in badan oo aan aqoonba saa loo tukadaa jirta intaa ducaad baa unoqon kari lahayd inaad salaada bartaan say u tukadaan iyo ilahay say uga cabsadaan iyo idan diintu waa shay u baahan dadku inuu wada ilaashado muslimiinta oo dhami walidalika abi bakr markiiba wuxuu bilaabay isna dacwo firfircoon oo inuu dadka kala gaadhsiiya dabeetana waxaa soo islaamay saxaabada waaweyn ee casharatu lmubashiriin ragga intooda badani gacanta abi bakr baabay ku islaameen baa la yidhaha calaa kulli xaal raggii waaweynaaye ee muslimiinta ee islaamka soo galay markaasi waxaa ka mid ahaa cuثmaan ibnu cafan iyo zubayr ibnu cawaam iyo cabdiraxmaan ibnu cawf sacd ibn abi waqaas طalxa ibnu cubaydillah raggaas baa ka mid ahaa iyo amiinu hadihi اlumma abu cubayda bn اljarax raggaasi markay soo islaameen weliba waxaad moodaa in ay taarget in la qabtay qabaa'ilkao dhan in wax laga islaamin karo yani waxaad moodaa quraysh reerihii kala gedisnaay oo dhan inay nimankani ka kala tirsanaayeen masalan cuثmaan ibnu cafan oo kale nin umawiya buu ahaa reer bani umaya nin ka tirsan zubayr ibnu cawaam oo kale nin asdiya buu ahaa cabdiraxmaan ibnu cawf iyo sahd ibnu abi waqaas oo kale reer bani zahra bay ahaayeen طalxa ibnu cubaydillahi oo kale nin taymiya buu ahaa yani waxaad moodaa jilibadii ay qurayshi ka koobnayd oo dhan in la waajahay cid walba sidii cid looga soo heli lahaa si dacwadu aanay u noqon mid reer gaara un reeraha kalena yidhahdaan waa wixii reer hebel wateen oo ay iska fogeeyaan reer gaaran ku koobnaata ayuu reerahoo dhan si isleeg uu waajahay dad badan baa markaasi islaamnimada kolba cidi soo gashay dad iyagaa u hor islaamay waxaa ka mid ahaa markaasi abu cubayda ka mid ah isagoona reer banu xaarisa waxaa ka mid ah abu salama ibn cabdilasad almakzumiy iyo haweenaydiisii umu salame saxaabaydii la odhan jiray waxaa ka mid ahaa alarqam ibnu abilarqam almakhzumi waxaa ka mid ahaa cuثmaan ibnu madcuun oo jumaxi isna u dhashay raggaas oo dhami cubaydata ibn اlxaris ibn cabdilmualib ibn lmualib ibn cabdimunaaf dad badan baa soo islaamay saxaabo dhowra marka laga warramayo saabiquuna alawaliin ilaa 130 dad gaadhaya baa la tilmaamaa oo rag iyo dumarba isugu jira laakiin kollay waa soo kala horhoreeyeen siday u soo kala horreeyeen axaadiis sanadkoodu saxiix iyo tiro badan baa ku soo aroortay laakiin riwaayaadku ay iskhilaafsan yihiin oo masalan axaadiista ka warramaysa oo kale abi dar alghifaariy goortuu islaamay oo kale ama damaad oo kale ka warramaysa ama ka warramaysa yani saxaabadii badan ee soo islaamtay ee noociyaadka kala gedisan u soo islaamay dhowr baa sheeganaya masalan raabicu arbaca inuu ahaa kii afraad inuu ahaa ibnu kathiir iyo marka ay kulminayaan ninka la yidhahdo ibnu xajar alcasqalani waxay leeyihiin axaadiistan o dhan waxaa lagu kulmin karaa bay leeyihin dacwadaas siray ahayd maadaama ay siri ahaydna lama garanaynin kii soo hor islaamay nin waliba wuxunbuu 2-3 yaqaanay mooyaane wuxuu islaamanada ku afara laakiin maadaama wuxu ay sir u socdeen waxaanu calan ahayn
kolba cid lala hadlayo kolba qofku soo islaamayuun midba un dhowrkan uu yaqaanay ama la xidhiidhay unbuu moodayo in isagu afreeyey markaasaa laga yaabaa dhowr nin oo kala gedisan inuu axaadiis ka soo arorto nin waliba uu leeyahay raabicu arbacaan ahaa kii afreeyey baan ahaa waa fii xuduudi cilmihi bay leeyihin dad kaloo muslimiini oo badan baa jira walow qoyskaa gurigaa nebigana ha noqoto calayhi salaatu wasalaam qoyska quraaba dee maxay ah marka la sheego khadiija iyo cali iyo zayd marka la sheego saddexdaba looga inay goor hore islaameen abibakr haddii lagu daro dee afartiiba halka waa joogaanba saa daraaddeed waxaad odhan kartaa axaadiista raabica wada sheegaysa waa fii xuduudi cilmi ayuu mid waliba ka warramayay dadyaw badan baa markaa islaamay dadyawga maalan saabiqiinta ka mid ahay aan laakiin quraysh ahayn waxa aynu soo sheegno o dhame waa quraysh saciid ibnu zayd iyo haweentii uu qabay faatime ay cumar binu khataab walaalahaayeen iyo khabaab ibnu ard saxaabigii la odhan jiray iyo jacfar ibnu abi aalib iyo haweenaydiisa asma bintu cumays la odhan jiray iyo khalid ibnu saciid ibnu alcaas iyo haweenaydiisa amiine la odhan jiray iyo kuwaasoo dhame goor horay soo wada islaameen dadyawga aan ka mid ahayn camaar ibnu yaasir iyo kooxahaasoo dhame goor hore islaameen dadyawga aan ka mid ahayn quraysh ee islaamay waxaa ka mid ahaa cabdillahi ibnu mascuud saxaabigii la odhan jiray oo hudali ahaa iyo mascuud ibnu rabiica oo qaari ahaa iyo cabdillahi ibnu jaxash dadyawga lasii tilmaamo waxaa ka mid ahaa matalan suhayb ibnu sanaan oo ruum u dhashay camaar ibnu yaasir oo canis ahaa iyo aabihii iyo hooyadii ninkii addoonkii caamir ibnu fuhayra la odhan jiray fuhayra abu fukayha miya may addoon ma ahayn caamir ibnu fuhayra baan rajaynaya raggaasi waxay ka wada mid ahaayeen aduu raggii aan quraysh ahayn ee soo islaamay haweenka aan quraysh ahayn ee islaamay iyagana waxaa ka mid ah umu ayman aynu sheegnay haween badan baa islaamay maala abibakar oo kale gurigiisaba waa laga wada islaamay ilaa caaisha ay lahayd gurigayga anigu wuxuun baan caqliyaystay buu lahaa reerkuba isagoo muslima reerkayga isagoo qof gaaliba ku jirin ayuun baan anigu caqliyaystay dadyawga hore u islaamay waxaa ka mid ahaa asma bintu abibakar oo kale dad badan baa islaamay wax cibaadaada oo soo degay oo macruuf oo xoog loo garanaya ma jiro bacd culamaai taarikh ama bacd alculamaa sa ibnu xajar oo kaliyaba waxay ku tagaan qabla alisra walmicraaj qaطcan in salaad la tukan jiray ay jirtay alisra walmicraaj 5 salaadood baa soo degay laakiin ibnu xajar oo kale wuxuu leeyahay qabla alisra qaطcan salaad la tukada baa jiray caaishana dee waabata laga wariyey riwaayaddaa salaaddu marka hore laba labay ahaan jirto markaasaa laga dhigay afar afar calaa kulli xaal salaad culamadu inta badani waa sheegtaa in salaadii uu jiray la tukan jiray weliba subaxii iyo habeenkii in la tukan jiray ama طuluucu shamsiga waktiga iyo qabla guruubiha meelahaasi oo kale in la tukan jiray salaada baa la tilmaamaa axaadiista iyagu sheegaya waktigaa in jibriil markiiba waysada nabiga baray iyo kuwaas iyagoo axaadiis iska sanadkooduna aada u liito matnigoodana nakaaro badan ay ku jiraan oo qaadasho badan ma leh nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu muddo dacwada sidaa waday ayaa waxaa la faray inuu dacwada kor ugu dhawaaqo waxaa soo degay aayadda qur'aan ee waandir cashiirataka alaqrabiin inkastoo baan filayaa mufasirkii babari oo isagu fasdac bima tu'mar aayaadka uu leeyahay aayaadkaasaa jahriga keenay ayan kanat waxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam kusoo degay maalan aayaadkan waandir cashiirataka alaqrabiin ka tilmaamay suuratu shucaraa suurad makiya ah suuraddaasi oo ka warramaysa runtii qiso ay culamadu yidhaahdaan waxay u ahayd nebiga deganaanshiyo iyo ma'aalka qadiyadiisu ama cidhibteedu waxay noqon doonto la daareensiinayey waayo suuraddaasi waxay ka warramaysaa qisadiis oo kala martay fircawn iyo nebi muuse bilow ilaa dhammaad ayaa qisadaasi soo socota waxay kaloo ka warramaysaa qoomam horoo tiro badan oo nebiyadoodii diiday oo la halaagay nuux iyo caad iyo thamuud iyo qowmu ibraahim iyo qowmu luut iyo asxaabu layka waxaasoo dhan bay ka warramaysaa waxay kaloo ka warramaysaa un suuradda tani dadka fiicani cidhibta fiican inay iyagu yeelanayaan ama ay ku dambaynayaan nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu bilaabay dacwo calana inuu sameeyo oo dadkao dhan loogu yeedhayo dacwadaasi aqaaribtana inuu ka bilaabo yaa qaraaba u ahaa nebiga calayhi salatu wasalaam quraysh oo dhami qaraabadiisa maalin intuu casuumaduu sameeyey inuu isugu wada yeedhay oo dabeetana abi
abilahab uu hadalka bilaabayba uu yidhi waa kuwan adeerada iyo tolkaayoo dham isu yimaadeen iyo waxa aad waddo iyo rabshadaa dadka ha geynin oo dagaal aana reerku geli karin ha gelino yani inuu hadalkiiba isagu ka hor bilaabay oo marka aanu maalintaa waxba odhanin nebigu maalin labaad inuu haddana isugu yeedhay maalinta labaad markaasi inuu ilaahay u mahad celiyey oo bacda shahaada uu la hadlay qaraabadiisii yarayd weedhuu ku yidhi inay ka mid ahayd ina araa'ida laa yakdibu ahlah sahanku tolkii uma been sheego yani reeru de hadday nin sahan loo dirto la yidhaho bal meesha roobka heliyo wax soo meel abaaraba intuu soo arko ma yidhaahdo reeraha soo rara waxaa soo arkay yani lagama filayo sahan la dirtay intuu soo noqdo inuu been akriyo waayo marka horeba sahanka in reer ku guuraa loo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi bay leeyihin qabiilkiisa yaro hoose markuu la hadlayay ina araa'ida laa yakdibu ahlah sahanka cidda loo dirtaa dadkooda uma been sheego ee ilaahay baan ku dhaartay aan alla kala jirine ilaahay rasuulkiisii baan ahay idinka gaar loo idinku soo diray dadkoo dhanna loo soo wada diray ilaahay baan ku dhaartay waa dhiman doontaan sidaa u seexataan waa laydin soo bixin doonaa sidaa usoo toostaan waana laydinku xisaabi doonaa waxaa camal samaysataan janno iyo naar abadiya midun baa geli doontaan riwaayaadka daciifkii waxay tilmaamayaan maalan ama riwaayaadka ahlu taarikhu ay wariyaan abu aalib baa u jawaabo wuxuu yidhi aad baan u jecelay inaan ku caawiyo nasiixadaadana waan aqbalay run inaad sheegaysana waan ogahay tolkaana waa kuwaas oo waxay ku kulansan yihiin inaanu mid adiga kaa mida nahay laakiin naftun baan yaro jeclaysanayn buu yidhi cabdilmualib diintiisa in laga weecdo naftun baan jeclaysanayn yani waa kuu gargaarayaa hiilkaad iga rabto waad iga helaysaa laakiin diintii reerkaan iska haysanaya anigu markay diin tahay halkii reerkaan joogaya laakiin inankii dee reer ka dhashay baato waad helaysaa gargaarkii waad iga helaysaa abulahab ba hadlay bay yidhahdeen oo isaga yidhi hada wallahi sawa waa ceeb waxaan aad wadaa aba aalib iyo maxamedo waxay isugu jiibinaysaa waa ceeb abi aalib ow reerka odagiisii baa tayay inankaa yar intaynu dagaal aynan qaadi karin aanu ina gelin maanta gacanta qabo abi aalibna wuxuu ugu jawaabay bay yidhahdeen wallahi lanamnacanahu ma baqayna ilaahay baa ku dhaartay waan waxbaan ka celin inta aan noolahay inaan cidi taabanaynin calaa kulli xaal waxay tilmaamayaan ninkan tolnimadii iyo qabiilkiina inuu ugu hiiliyey rabay inuu u gargaaro wiilkan yaroo adeerka u yahay laakiin diin ahaan muu qaadanin riwaayaadkaasi inta badan waa mashhuur fi taariikh laakiin culamaa alxadiid wax sanad fiican u sheegaya maan arag ama xadiidka jabal safa isagoo xadiis saxiixa nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaha aayaadkani markay kusoo degeen ayuu soo baxa dabeetana wuxuu yimi buurtan yare safa la yidhaahdo safida iminka waa tan masaajidka gudihiisa labada kurood ee inta la dhex socdo laakiin berigii hore kacbada iyo dee safa daara iyo magaala udhexayn jirtayba yani meel aan kala durugsan oo buuro yaroo markaa banaan iskaga yaalo kale ayaa waakay meeshaa yar buu yimi nabigu calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuu qayliyey ya sabaxa waa sabaxa buu ku qayliyey weedhatani cinda alcarab waxay u dhigantaa un hayaayda soomaalida oo kale waa qof wax arkay ama balaayash arkay ama war dhiilo leh ama wax qof raba inuu sheego oo meesha intuu istaago marada lolo hayaay kasoo kaca yidhaahdo un warkii weeyaan carabtu say u isticmaali jirtay halkaasuu istaagay dabeetana waa qayliyey qurayshi markaa yeedhatan way ka yaabtay war yaa qaylinaya waxa la arkay inuu moxamed yahay dee beenna laguma baran alamin saadiq baa loo yaqaan war waxa maanta ka dhawaajiyey baa la yidhi waa arrin khatar ee inugu yaacsiiya dadkii oo dhan baa isu soo baxay baa la yidhaha dad aad u badan qabiil aan cidi ka imani ma jirto markii la ogaaday inuu nebi yani moxamed bay iyagu rumaysayin inuu nebi moxamed yahay calayhi salaatu wasalaam ayaa cid waliba timi xataa abilahabkii mucaaradka ku ahaa baa yimi meeshiisa soo taagay markii la wada yimi ayuu qabiil qabiil u kala qaaday ya bani fahr ibnu ma yani waa quraysh ayaa qabiil ahaan quraysh buu ka soo bilaabay markaa waa reer bani faharow reer banu cadayow reer banu fulanow reer banu qabiilkii buu kala saarsaaray haddana hoosu sii waday reer banu cabdimunaafow reer banu cabdilmualibow ilaa riwaayaadka qaarkood ay sheegayeen inuu soo gaadhsiiyey maxay xagga hoose faatima iyo cabaas iyo meelaha inuu sii gaadhay si uu sii kala waday wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku yidhi intuu u yeedhay qabaa'ilkii oo dhan
ara'aytukum law akhbartukum ana khayla bilwadi bisafxi hada aljabal turiidu an tugiira calaykum akuntum musadiqiin waar may rumaysanaysaan haddaan idiin sheego war odhanaya buurtan dacalkeeda dambe fardaan kusoo arkayo ciidamo waa laydin gelaya ma iga rumaysan lahaydeen yani wuxuu rabaa inuu u tilmaamo marka hore khabarkiisa siday u arkayaan warkuu sheego war aydan ogeyn oo ah buurtaasi waxa ka dambeeya aydan arkaynin haddaan ka warramo oo sheego in col soo socdo laydin gelayo warkaa ma iga qaadanaysaan oo ma rumaysanaysaan waxay yidhahdeen nacam maa jarabna calayka kadiban saanan kuu rumaysan bay yidhaha managaa weligaaba wax been la yidhahdo kugu arag maa jarabna calayka ilaa sidqa run waxaan ahayn kuguma naqaano markaa saanan kuu rumaysan waa tawti ah waxay culimmadu inta badan ka warramaan yani ashaabi dacwa wax fiican bay yidhaahdaan tawti ah inay u sameeyaan ta kale qofka hadalkiisa waxa la aqbali og yahay marka hiqa lagu qabo yani maalan tusaale iska fudud cid mansilatu shaykhuukha dadku ay u rumaysan yihin cid ay sheekhnimo u rumaysan yihin hadduu war sheego dadku markiiba waa wada qaadanayaan yani maalan tusaale iska fudud cid mansilatu shaykhuukha dadku ay u rumaysan yihin cid ay sheekhnimo u rumaysan yihin hadduu war sheego dadku markiiba waa wada qaadanayaan nin dhalinyaro oo xataa haba cilmi badnaaday hadduu intuu soo fadhiisto war akriyo wallahi nin dhalinyaraba midkaa sheegaya in la yidhahdo mooyaane waxaad moodaa dadka inay hore uga daadegeen waayo weli kalsoonidii ahaa ninkan inuu sheekh yahay ayaan dadku in badan mala qaadanin saa daraaddeed waa laga yaabaa in runba ha ahaatee wuxuu sheegayay in laga soo yaro warwareego marka hiqadu kalsoonida in qofka lagu qabo wax sheegaya wax weyn bay ka tahay sida awgeed ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam awalan kalsoonidoodii u dhistay oo wuxuu leeyay war may rumaysanaysaan haddaan halkaa idiin sheego bal saan idinku ahay agtiina waxay sheegeen markaa inay ku kalsooyin inuu aqbalayaan akhbaartiisa wuxuu ku yidhi markaasi fainii nadiirun lakum bayna yadaya cadaabin shadiid haddaba waxa aan idinka digayaa oo aan ka digayaa cadaab kulul baan idinka digayaa idinka horaysa oo idinka dambaysa weedhatan markuu yidhi oo uu saan ugu dhawaaqay oo weliba midhmidh u kala qaaday cidi dheg badan uma taagin bale wuu ku sii waday baa la yidhahdaa wuxuu u tilmaamay war qurayshay war ilaahay naftiina ka iibsada cadaabkaasi naftiina ka badbaadiya war anigu waxba ma hanto laa amliku lakum min allahi daran walaa nafca walaa ugni cankum min allahi shaya ilahay agtiisa iminkaba anigu waxba idinkama taro ninkii ilaahay rumeeye ee raaca ayaa ilaahay badbaadinaya laakiin nebi maxamed baanu tol ahayn ama qaraabo ahayn ama tolnimo la wadaagna waxba ku heli maysaan buu nebigu leeyay alayhi salaatu wasalaam ee yeeloo ilaahay raaca markaasuu weliba qabiil walba hoos ugu sii kacay ilaa xad bay yidhahdaan culimmada uu gaadhsiiyey cabaas ibnu cabdilmualib ilaa uu soo gaadhay ilaa weynantiisii soo gaadhay baa la yidhaahdaa oo yidhi faatima bintu maxamedey waa kuwa xoolahaygiiyo waxaad doonaysa i weydii wixii aan hayo waxbaan kaa siinayaay laakiin naftaada cadaab ka dhowro hadaad adigu diidda inaad cadaab iska ilaaliso waa ina nebi maxamed cidi cadaab kaaga dayn mayso ee cadaab iska dhowr buu ku leeyahy abilahab wuxuu ahaa nimaana la barakaynin nebi maxamedna adeer ruma u ah yani kuwa nebiga ka fogaana ilaahay waa ku anfacay diintii abilahab oo adeerkii rumana alla kuma anficin abilahab markaasi wuxuu yidhi markay dadku saasuu u sheegay tabban laka saa'ir alyawmi ala hada jamactana waar hoog maalinta inta ka hadhay ma waxaasaa dadka isugu yeedhaysay waxaan moodaya yani wax kale oo war inaad sheegayse waxaad la hayaay lahaydee dadka isugu yeedhaysayba ma intaasay ahayd buu ku leeyahay hooge dabeetana waxaa soo degay aayaadkan qur'aana ilaahay leeyahay tabbat yada abi lahabin watab ma aghnaa canhu maaluhu wama kasab sayaslaa naaran data lahab wamra'atu xamaalata alxatab fii jiidiha xablun min masad suuraddanina runtii waxay ka mid tahay waxyaabaha mucjizaadka ee qur-aanku inuu xagga alle ka yimi lagu rumaysan karo waayo halkay carabtu yidhahdaan beedkiisii buu sallad qura ku wada riday nebigu beedkiisii oo dhan sallad qura ku wada riday markan aayaddani maxay sheegaysaa quraysh dad badan oo gaalaha baa ku jiray soo maaha yani waxaa muslimkuba wuu yaraa abilahab gaar baa isaga loo tilmaamo waxa la yidhaha adigu naartaad gelaysaa abilahab wuu awoodi kari waayo mar qura inuu yidhahdo laa ilaha illa allah hadduu laa ilaha illa allah mar qura yidhahdo maxaa dhici lahaa
in la yidhaha qur-aanku waa been iyo maxamed wuxuu sheegaya ilan kan waxaa tihi naartuu gelaya waa kan laa ilaha illa allah loo islaame oo jannuu geli doonaaye wuxuuba waa dumi lahaaye laakiin waa mucjizaadka yani qur-aanka waxyaaba tilmaamaya inuu mucjis yahay bay tilmaamaysaa abu sufyaan lama odhanin naar baad gelaysa isagoo kuwa ugu adag ka mid ahaa bale 21 sannadood buu nebi maxamed la dagaalamayay 23 sannadood ee waxyigu soo degayay 21 sannadood qaa'id gaale hogaaminayuu ahaa haddana ilaahay unbaa tawfiiqda waafajiyo 2 sannadood ee u dambeeyay unbuu isdabaqabto iska islaamay dabeetana saxaabi buu noqday islaamka u jihaatamo dagaalamo markii dambe waa ka yani abu sufyaan hadduu ahaan lahaa ninka la yidhaha tabat yada abi sufyaanin waxay noqon lahayd in la yidhaha qur-aanku been buu sheego dee wuxuuba ma aha wax saxa idan waxay leenahay aayadda suuraddan yari waxa ay tilmaamaysaa qur-aanku suu mucjis u yahay xataa basharkii meesha joogay ayaa la yidhi kan isagu weligii islaami maayo fi naar baanu gelaya dadkan kale si raja way qabaan oo wax islaami karoo badani waa ku jiraan ficlanna dad badan baa dadkii islaamay laakiin isagu sidiisiibuu ku halaagsamay oo ahlu naarkiisii ku yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam saas ayuu dadkii oo dhan u wada gaadhsiiyey ilahayna wuxuu farayay fasdac bima tu'mar waacrid can lmushrikiin ku dhawaaq baa la yidhi oo caddee kala dilaaci waxa alla ku faray subxaana wa tacaala gaaladana iskaga jeeso sidii ambiyada kaleba u lahaayeen yaa qawmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin hayru taas baa la yidhi caddee ou nabigu calayhi salaatu wasalaam bilaabay dacwadii jahriga ahayd markay bilaabantay waxaa bilaabmay markaasi dacwadii kasoo horjeedkeeda ahayd in loo ololeeyo sidii loo baktiin lahaa awal waxay ahayd dee afraad qof in loo tago oo islaamnimada loo sharxo oo ama galo ama diido bes qof un baanay awal u socotay dadkaa horena qof bay usoo islaameen iminkase waa si calana inuu nebigu wax u sheego calayhi salaatu wasalaam inuu tago goobahay ku shirayaan meelaha lagu sheekaysto dhulka la ysugu yimaado kacbada iyo meesha yimaadaan dhulkay sanamada ku caabudaan meel walba in laga sheego si calana marka waxay noqotay dacwo ololaheeda wadata oo dib u bilaabantoo loo ololeeyey oo si cadna u socota nimankii carabeedna markaa waxay bilaabeen in la isu tago sidii loo waajihi lahaa laga fekero walidalik baa waxaa bilaabmay isu tagyadii ahaa maalan qaababkii loogu hortegi lahaa in la sameeyo maalan waxaynu naqaanaa culamada taarikh inay soo arooriyaan inay shireen carabta oo wax la isweydweydiiyey oo waxyaabaha la isweydweydiiyey ee ka mid ahayd walid binu mugiira oo kale ayay yidhaahdaan baa isugu yeedho waxay yidhahdeen war maxaynu nidhaahnaa ninkan waktigii xajkiina waa soo dhowyay jaahiliyadii carabta weli way xajaysaa oo nebi ibraahim dee diintii uu ka tegay weeyaan marka waxaa la leeyahay war wakti mawsamaa soo dhowo markay buuxsami doonto dee hadduu dadka intuu wixiisan uu bandhigo uu dad helana waaba laynaga badan karaa ninkani xoog buu helayaay yuu xoog helina dadka kale aan ka hortagnay maxaynu nidhaahnaa maxaa dadkii lagala hortegaya waxyaabaha isweydiinaya waxaa ka mid ah aan idhaahno waa gabaya waa falalow waa sixiroole waa caynkan waa kuwa culamaa siira sheegay inuu mid kasta walid binu mugiira diidanaayo u lahaa ma jirto kanna maaha hadalkiisana hadalkani hadal kaahin waan aqaanaa warkii iyo sixiroole iyo falalow warkii maaha ma aha ninkani nin waalan ma aha sixiroole iyo warkii maan aqaana gabaya waan aqaanaa iyo gabayada sida badaha gabayga oo dhan la tiriyo dhan waan aqaanaa mid kasta oo bad gabaya waan garanaya waxaan wadaa bad gabay maaha aakhirkii bay yidhahdeen dee bal waaya haddaa maxaanu idhahnaa waxay sheegeen oo dhan markuu radiyey ayay isaga yidhahdeen dee bal waaya adigu tala keen haddaba maxaan idhahnaa wax kala garan maayo buu yidhi waxa ugu dhodhow inaynu idhaahno maxay waxaan waa sixirkuunbaa malaa la qaatay xaggiisa inaynu marroon idhaahno ninkani waa sixirroole waana suurat lmudathir qaybaheedan dambe sababtay kusoo degaysay culamadu sheegaan inahu fakra waqadar faqutila kayfa qadar uma qutila kayfa qadar uma nadar uma cabasa wabasar uma adbara wastakbar faqaala in hada ila sixrun yu'thar in hada ila qawl lbashar waxa la yidhaha weedhaa intay qaateen ayaa dadkii laysu qaybiyey markaa waxaa la yidhi dhulka maka laga soo galo maka waa buuraley maadaama dhulku uu buuralayayna wadooyin yaroo kooban unbaa jiro oo laga soo galgalo dhulka laga soo galoo dhan dad ha loo qaybiyo dadka ka hortaga oo wacyi geliya oo faafiya brobagandadeenna tan oo been fakatay dee runimo gaadhadii un weeyaane beentan ha lasii daldalo inta aanu warkani gaadhin beentan iyo faafinteeduna runtii waa asaaliib soo jireena xataa kuwan dambe ay rumaysan yihiin yani maalan qaacidada iclaanka bay yidhahdeen ugu weyne la rumaysan yahay
waa un warka in lagu celceliyo dadku aakhirka uu rumaysanaya. BBC-daasi markay idinku wado waxay sheegtay dhan run baa imika la isaga haystaa, waa daliil. BBC-daa sheegtay run buu haystaa, waxay BBC oo sheegtaa inay diinta ka mid tahay. mushkiladdu waxa weeya waa ku celcelinta tan, waayo waxaa la yidhahaa ra'yiga kan matalan nadariyadda iclaamiga ee ku celceliska dunida waxay uga dambaysaa Goebbels nin la odhan jiray. Goebbels waa wasiirkii iclaamka ee Hitler baa la yidhahdaa. Hitler wasiirkiisa iclaamku waxay ku talagaleen ciidan baa jabay iyo waxaan in la sheegin in been dunida lagu harqiyo. dabeetana wariyaashii buu ninkani wuxuu kula ballamay maadaama dawladda naaziyo adag ay ahayd oo isku xidhan beenta sheega laakiin ugu celceliya dadku way rumaysanayaan uune. mujarad buu ninkaasi amar wuxuu ku bixiyeen ku celceliya. marka waxay dhahaan waa qaacida iclaamiya, dadku waxay u baahan yihiin in warka loogu celceliyo, akhiiran waa iska qaadanayaan. haddii dhowr goor lagu celiyo ninkaasi waa irhaabi dadkao dhan irhaabay kuu qaadanayaan. waa mujarad un in warkaasi uu noqdo war lagu celceliyo inuu noqdo. waxay qaateen nimankan carbeed inay meelahaasi oo dhan tagaan, beentaasi la faafiyo laga horraysiiyo. culamaai taariikh baa sida usoo wariya, laakiin ficilka matalan abulahab oo kale waxaa la yidhahdaa dadka daba socday musnadu imaamu axmed saa ku qoran oo kale inuu ka mid ahaa isagu raggii baxayay, bale inuu isagu nebiga dabageli jirayba. isagu wuxuu yidhi aniga igu daaya, idinku warka kale qabaa'ilkan iyo waxaan imanaya kusii faafiya xajka marka la isugu yimaado, isagana aniga ii daayo inuu isaga daba soconaya. marka waxaa la yidhaha intuu nebiga daba galo ayuu nebigu wuxuu tegayay manaasishii dadku ay degayeen, suuqyadii dadku ay kala degayeen, cukaad iyo majana iyo dilmajaas iyo waa meelihii markaa carabta ay degi jirtay. marka la isugu yimaado xajka meelaha la degaa, xajajka iyo meelahan markay soo maraan suuq baa mushtar buu ahaayo, wixii dunida la isaga keeno o dhan baa lagu kala iibsadaa. wuxuu kaloo ahaan jiray meel qabaa'ilka carbeed isugu faanaan oo la isugu afdhigto, qabiil waliba gabayaagiisa iyo aftahankiisuu keeni jiro, ama khudbad ka jeedin jiray ama gabay akhriyi jiray, oo gabayadaasi ay ahaan jireen. markaa la yidhaha wallahi qabiilka dee reer hebel gabayaagooda loo babac dhigi kari maayo, oo meel adabku la isugu soo bandhiga bay ahayd. markuu nebigu daba socdo ee uu reer meel tegan u yimaado bay yidhahdaa ilaahay ka cabsada, waryaa wax iga dhicinayaan ilaahay diintiisa dad gaadhsiiya. awilaha baa daba taagan oo leh anaa adeerkii iyo wiilkan yar waxba ha dhegaysanina, waa wiil yaroo bidcoolo diinta ka baxaya buu yidhahaa. saabi bay ku sheegi jireen. saabi waa qofkii diin hore ka baxay ee diin dambe gala, yacni waa wiil yaroo bidcoolo ah oo ka tegaya anaa adeerkii iyo waxba ka dhegaysanina buu la daba taagnaa. asaaliib badan bay adeegsadeen runtii. asaaliibtaasi dacwada lagaga hortegay waktigaasi waxaa ka mid ahaa in lagu jees-jeeso, lagu cayaayiro, istihzaa loo muujiyo, lagu qosqoslo, la maago, laga dhigo kaanamaa qof waalan inuu yahay. qofka haddii mujtamac oo dhami meeshaad soo fadhiistaba haddii lagugu qoslo oo lagugu boqo waad waalanaysaa akhirka, yani qof waalan oo kale ad u ekaanaysaa. dadkan xataa waalan dadka waa aragteen, isagoo marka hore iskaba yaro miyir qabaan xoog u waalan bay carruurta iyo dadka iyo daba buuqaana markaasuu kasii wada dhigaa. adigoo miyir qabaan haddii kuwa lagu itixaamood waalanaysaa runtii. waxay isku dayeen markaa in loo sameeyo dacaayadda tana ilaa xad in suuqa laga saari karo. walidalika waa ka dagaaladaas oo dhan qur-aanku ka warramaya, dagaalka iclaamiga ah ee ilaahay qur-aanku leeyay waqaaluu ya ayuha aladii nuzila calayhi dikru inaka lamajnuun bay yidhahdaan. ilaahay ka baqa buu leey markaasay leeyihin kan qur-aanku ku soo degayow nin waalan baa tahay bay leeyihin. waxyaabay ku lahaayeen waxaa ka mid ah sukhriyada iyo kadibka keenayay. wacajibuu an ja'ahum mundiru minhum waqaala alkaafiruuna hada saaxirun kadaab. waxay la yaabeen baa ilahay yidhi mid digaya inuu u yimaado, markaasay gaaladu waxay yidhahdeen waa sixiroole beenaalo ah ayay yidhaahdeen. waxaa kasii dana sida isha loogu mudaye loogu xaqiray, yani hadalka marmar baa ficilka iyo hamsiga iyo ilkumudka iyo carabka uu kasii faalxun yahay. walidalika ba ilahay wuxuu leeyay wain yakaadu aladiina kafaruu layuzliquunaka biabsaarihim. waxaabay ku dhawaadeen ba ilahay leeyay kuwa gaaleed inay isha kugu legdaan ba alla yidhi lama samicuu dikra wayaquluuna inahu lamajnuun. bale istihzaagoodu wuxuu gaadhay inay yidhaahdaan ilaahay ma cid adiga dhaanto u soo dirtaabu waay intuu agoon yar alla soo dirayo. odayadii qorayshood oo dhami way joogaane maa qoraysh iyo dadkii hantiilaha iyo dadkii waxayste iyo waayeelka maxaa loo soo diri waayo inta inan yaroo agoon iyo raja kusoo koray alla soo diranayo. waa ka alla ku tilmaamaya markay iyagu lahaayeen ma ilaahay ma adu kugu manaystay bay yidhahdeen annaga dhexdayada. waa ka allana ugu jawaabaya alaysa allahu biaclama bishaakiriin. waar ilaahay miyaanu ogeyn cidda u mahadnaqaysa, cidduu isagu dooranayo miyaanu isagu ogeyn. waa ka ilahay qur-aanka ka warramaya ina aladiina ajramuu kanuu min aladiina aamanuu yadxakuun waidaa maruu bihim yatagaamazuun
وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. jeesjeeskan iyo cayaartan iyo kuqosalkan iyo buuqan iyo waxani waxay gaadheen dee xad qofka caadiga waxaynu dhi waa la waali karaa. walidalik baa ilaahay qur-aanka wuxuu alla ku leeyahy nebiga isagoo tilmaamaya mashaladani dhibta ay ku hayso, walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun baa ilahay yidhi. waan ogahay baa alla yidhi subxaana wa tacala ila laabta ku cidhiidhtoomayso waxanay kaa sheegayaan, sidan ay kuu dacaadeynayaan iyo waxaa kaa sheegaya. haddii mujtamac weliba kuwii kuugu xigaya tol iyo qaraaba ad lahayd haddii alla kugu diro ay iyagun kaa daba shaqeeyaan oo saa lagu dacaadeeyo magaaladoo dhami kaa soo horjeesto dadkao dhami ku wada dacaadeeyo, naftaa isugu kaa imanaysa. ilaahay laakiin wuxuu u tilmaamay markii loo sheegay walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun, markii alla tilmaamay waxaa kaloo alla uu sheegay suurat alxijr wuxuu kaga bixi lahaa. dabeetana waxa la yidhi fasabbix bixamdi rabbika wakun min asaajidiin wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin. ilahay wuxuu yidhi iska tasbiixso oo ilaahay u sujuud oo xidhiidhkaad alla leeday badi, waxaan kaloo dhami waxba noqon maayaan. idan qofka muslimka ahi sanad uu ku tiirsado balaayo o dhami hadday haleesho sanad lagu tiirsado dee waa allun subxaana wa tacaala. ilahayna qofka muslimkii wuxuu kula hadlaa waa markuu salaada tukanayo. qofku markuu salaada tukanayo ilahay buu toos ula hadlaya, ilahay baana kuu jawaabaya. saa axaadiista saxiixa oo nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam. saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahay tasbiixso oo sujuud oo ilaahay caabud ilaa inta geeridu kaaga imanayso halkaagaa joog. inaa kafaynaaka almustahzi'iin baa ilahay yidhi, kuwan kuu jeesjeesaya anaa kaa kaafinaye sidaa yeel baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala. inaa kafaynaaka almustahzi'iin aladiina yajcaluuna maca allahi ilahan aakhara fasawfa yaclamuun. waxaa kaloo alla uu tilmaamay nebiga calayhi salaatu wasalaam ariiqan inuu yahay ariiqii ambiyadu mari jirtay, marka inaanay keligaa ahayn dhibtuye waa wado mucabad ah, yani waa wado la budliyey oo hortaajiraba uu soo maray nebiyadii hore ay soo mareene adkaysaa la leeyahy. walidalika baa ilahay wuxuu leeyahy walaqad istuhzi'a birusuli min qablik faxaaqa biladiina sakiruu minhum ma kanuu bihi yastahzi'uun. adiga rusushii kaa horraysayba waa lagu jeesjeesay baa ilahay yidhi, laakiin beledu wuxun bay ku dambaysaa baa ilahay yidhi kuwan jeesjeesaya ee adigu ariiqaagaasi hay. xarbu dacaayaha badan way wadeen, waxay kaloo wadeen yani xuruub tiro badan bay nebiga la galeen calayhi salaatu wasalaam. waxay kaloo wadeen xarbu shubahaat, ihaaratu shubahaat iyo dacaayaad been oo kaloo tiro badan in la sameeyo oo a dadka sidii caamada loo shaki gelin lahaa. mar waxay dhahaan waa adqaatu axlaam, maxamed habeenkii unbuu riyoodaayo dabeetana subaxiibuu intuu isku soo toostoosiye bay yidhahdeen ayuu la yimaada yidhahdeen waa laysoo waxyooday. bal iftaraahu bay lahaayeen, waa soo been abuurtaa, inamaa yucallimuhu bashar, dad baa usoo dhigdhiga bay yidhahdeen. meelahaasu kasoo dhegedhegeeyo waxoogaa uu dadka kasoo dhegedhegaystay. in hada ilaa ifkun iftaraahu waacaanahu calayhi qawmun aakharuun, qaar kale ugu gargaaray bay yidhaahdeen oo jimanbaa waxu sheegsheegay iyo waxbay sheegaan waa qaar kale. bale waxaad ka garan kartaa xataa dacaayadani siday u faaftee dadku u aqbalay. axadu صaxaaba wuxuu ku islaamay masaladan, damaad saxaabiga la yidhaahdo, wuxuu ahaa qabla alislaam dadka jinka ka saara ayuu damaad ahaa. xadiidkaas waa xadiis saxiixa. damaad markaa waxaan maqlay buu yidhi ninkaasi in jinderdereen wararkii lasoo gaadhsiiyey waxa laga dhaadhiciyey maxamed in jinderderay nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam. marka waxaan maqlay bu yidhi ninkaasi inuu xanuunsanayo jinderderay. dabeetana wuu soo lugayo waxaan u socday bu yidhi war bal miskiinkaasi dadku ay ku qaylinayaan aad jinka ka saarti. magaalada maka wuxuu u yimi markaasi inuu maxamed jinka ka saaro. kadibna waan u imo waxaan ku yidhi bu yidhi nin dhakhtaraan oo tabiiba jimankana dadka waan ka saaraa, dee dhibtaana waa lagugu sheegayaa, aan bahalka kaa bixiyo kaa farsameeyo. warkiisii markuu akriyey ee uu sheegtay ayuu nebiguna calayhi salaatu wasalaam la hadlay. nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa xamdaladii buu ku bilaabay, ina alxamda lilahi naxmadu wanastaciinu, xamdaladu akriyey. markuu ku akriyey ayaan waxaan igu yidhi aacidhu, iigu celi. haddana wuu ku celiyey buu yidhi. markaasaan idhi bu yidhi haddana aacidhu, iigu celi. wuu ku celiyey buu yidhi. markaasaan waxaan gartay buu yidhi warka ninkani sheegayo inaanu ahayn warkii jimanka iyo sixroolayaasha iyo baabkan kaahinada iyo farsamadan aqaanay warkeedii inaanay ahayn baan gartay buu yidhi. markaasuu islaamay. oo dadyagii ugu horreeya islaamu ka mid yahay, saxaabadii saabiqiinta ahaa ayuu ku jiraa damaad.
sababtu uu islaamayna waa nebi maxamed jinka ka soo saar buu is yidhi. yani waxaad garan kartaa markaa dacaayaddu siday u faaftay ama dadku uu qabuulay. waa mushkiladda imika iclaamka reer galbeed inagu hayo o kale. reer galbeed iyagaa dadka dilaya, waxay doonaan samaynaya, iyagaana warramaya oo wixii jirayna iyaga ka sheegayo, dadka u sheegaya. dadku waxay sheegayaan unbuu run u haystaa, halna kama run aha, inta ugu badani waa been. dee ilaahayna marka horeba wuxuuna yidhi wain ja'akum faasiqun binaba'in fatabayanu. faasiq hadduu war idinla yimaado iska hubiyaa la yidhi. kaafirka isaga kiisa maxaad u malayn markaa? innaguna ka kaafirka inugu hor rumaysan ogni. waxay sheeganayeen iyagu markaasi waa asaatiirul awaliin bay lahaayeen waxaan ku soo degay, bale waa ka qur-aan soo degay ilaahay uu masaladan ka afinayo. markay yidhaahdeen jiban baa ku soo degay iyo ra'yi baa la socday, carabta waxay rumaysnaan jireen nimanka gabayaagooda inta badan in wax loo sheego oo jin kalaa la socday odhan jireen gabayaaya haddaad aragta bay dhahay jiban baa wax sheega, saasay rumaysnaan jireen. marka waa ra'yi fulaan baa la odhan jiray oo la socdaa wax sheegaya. ilaahay baa markaa qur-aan soo dejiyey leh hal unabi'ukum calaa man tanazzalu shayaaiin tanazzalu calaa kulli afaakin atiin baa ilahay yidhi. waxaa ma idiin warramaabaa ilahay yidhi kuwa shaydaamadu kusoo degaan, sixroolayaasha iyo beleda iyo kuwa faaliya iyo waxa shayaaiintu kusoo degaan waa calaa kulli afaakin atiin. mid kastoo beenaalo ah oo dembi badanaa buu kusoo degaa. ee bal eega nebi maxamed oo ma ku haysaan calayhi salaatu wasalaam? mid beenaalo oo dembi badanaa taarikhdiisa ma ku haysaan? siiradiisa ila waa haysaane. idan waxa weeyaan ma aha shaksiyad uu shaydaanba xaggeeda usoo kici karo. kuwa shayaadiinta wax ku akrinayaan waa inay sifaadkan yeeshaan. waxay badiyeen nimanka carbeed oo in badan isku dayeen inay dadka yidhaahdaan ama waa waalan yahay ama waa gabaya, ilaa qur-aan soo degaya ilaahay uu leeyahay maaha gabaya, oo ilaahay leeyahay shaacir iyo majnuun toona maaha. bale ilaahay wuxuu xataa qur-aanka lagu sifeeyey sifaadka gabayaaga lagu yaqaano. 3 sifaa lagu tilmaamay. والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. 3 صفات خاصيدود bay leeyihiin baa la yidhi bal ka eega nebi maxamed ma ku haysaa. waxaa la yidhi shucarada had iyo goor waxaa raaca dadka qawqaayiinta, jamaahiir iska masaakiin unaan wax badan dadaan kala ogeyn ayuunbu intuu hadal isugu toostoosiyo qurxiyunba ka daba sacabiyo raaca. waxaa kaloo ilaahay uu ku sheegay kooxda shucaradu dadka markaa dabagalaa waa noocaasaa la yidhi. fanaaniinta iyo noocaasi inta ugu badan leh dumar iyo carruur iyo dad waalanuma daba socdaa. bal u fiirsan un adigu mid gabya ama heesa ama noocaasi. ila aladiina aamanuu baa ilaahay ka soo reebay. koox yar baa la soo reebay, in yar baa laga istitnoodoo la yidhi kuwaas waa ka hadhan yihin, laakiin inta ugu badan leh waa nooca kan. waxa kaloo waa la sheegay subxaana wa tacaala alam tara anahum fii kulli waadin yahiimuun. waa dad meel walba iska dhumada, wuxuu arkaba wax ka sheega. nebi maxamed kaama yahay baa la leeyahay alayhi salaatu wasalaam. had iyo goor dadka gabayaagii waxay u badan yihin dad tartaarina, dad hadal badan oo sheeko badan oo wax walba wax ka sheego hadlo una afka isku darin. waxaa kaloo ilaahay uu ku sheegay waanahum yaquuluuna maa laa yafcaluun. waxaanay samaynna way sheegtaan. faan gabayaagu waa faan badan yahay had iyo goor. hadduu reerkooda ammaanayo reerkooda bahalladii dadkao dhan cunay buu ka dhigaya. hadduu isagu is ammaanayo yani nin khatara buu iska dhigaya. waa waxaanu samaynoo tiro badan ayuu sheegtaa. ilaahay markaa wuxuu yidhi waanahum yaquuluuna maa laa yafcaluun. waxaanay samaynoo tiro badanna way sheegtaan. nebi maxamed miyaa sifaadkaa ku haysaan baa ilaahay leeyahy. yani ma aha sifaadkan oo dhan laguma hayo, sifaad waan wanaagsan baa lagu haya. qur-aankuna in badan ayuu u xalaaliya waxay shubahaad soo arooriyeen. shubahaadkaa tirada badan le ay soo aroorinayeen inta badan waa shubahaad ku salaysnaa madmadow in dadka laga geliyo diinta, gaar ahaan tawxiidka iyo risaaladu nebi maxamed waday, iyo inuu bacthi jiro wakti dambe oo laysa soo saarayo qiyaama inuu jiro, iyo qur-aankan inuu xagga alle ka yimi. waxaasay dadka shubahaadka gelin jireen. maray yidhaahdaan ilaahay muxuu malaa'igu soo diri waayey, iyo maray yidhaahdaan bal rasuulkan suuqa idinla wareegaya ee suuqa isba ka xoogsanaya haddana nebiga idin sheeganaya eega. yani waxay rabaan inay yidhahdaan ma lihada rasuuli yaakulu طacaam wayamshi fi laswaaq ba yidhahda waxay rasuulkan cunada cunaya ee isba suuqa marmaraya. ilaahayna subxaana wa tacaala in badan buu waxoodan radinayay. ilaa xad beenta ay abuurteen ay yidhahdeen ma anzala lahu calaa basharin min shay. ilaahay ba dadka wax kuma soo dejiye, maxaa malaa'ig loo keeni waayey bay yidhahdeen. isagoo ilaahay radinaya waa kale qul man anzala alkitaaba aladi jaa bihi muusa. nebi muuse kiisa way rumaysnaayeen iyagu. haddaa kii hore muuse sidee yaa keenay baa alla leeyay subxaana wa tacaala. miyaan bini aadam ahayn cidda loo soo dhiibay.
waa ka alle subxaana wa tacaala ku tilmaamaya muuseba inuu rasuul ahaa nebi maxamedna inuu rasuul yahay oo la mid yahay. mar waxay lahaayeen annaba bini aadam kula mida baanu maanu rasuulla noqono. ilaahayna waa ka uu tilmaamaya allahu yaclamu xayثu yajcalu risaalata. ilahay isagaa og cidduu dooranaya uu rasuul ka dhigayo. waxay ahayd un dafiraad la rabo in nebi maxamed la dafiro. dee nebi ibraahim iyo ismaaciilba way rumaysnaayeen inay ambiyo hore ahaayeen. waxay laakiin rabeen inay kolba dacaayad nooca furaan. mar ay yidhaahdaan ilaahay muxuu miskiinkaaga yara agoonkaa ka soo diraya muu labadii oday ee magaalooyinka waaweyn soo diro. lawlaa nuzila hada alqur'aanu calaa rajulin min alqaryatayni cadiim bay lahayd. labada oday ee waaweyn ee labada magaalo maa mid ka mida lasoo diro maxaa adiga lagaa soo diraya. ilaahay baa wuxuu ku leeyahy ahum yaqsimuuna raxmata rabbik, ma iyagaa ilaahay naxariistiisa qaybiya. markay odayaal u qaybinayaan iyo nooca kan, ma iyagaa ilaahay naxariistiisa qaybiya baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala. allahu aclamu xayثu yajcalu risaalata, yani ilahay isagaa og cidda uu rasuul ka dhigayo iyo cidda ku habboon inay risaalo qaado. marar kale waa ka ilaahay qur-aanka inoogu tilmaamaya inay lahaayeen waa maxay rasuulkan suuqa jooga ee xoogsanaya caynkani, ma ilaahay ama rasuul soo diro ama hadduu rasuulku xagga alle ka socdo boqoraduba ninka ay soo dirayaane cid u dirayaan xaashiyo dhan baa la raacaya. yani madaxweynuhu markuu mid idin soo dirayo wasiire waxoogaa askar iyo dad la socda iyo waxoogaa lacagay waxbaa lasoo raacaya. muu qof muuqda noqda bay leeyihin hadduu rasuul lasoo diray uu yahay. waa ka ilaahay ku tilmaamaya inay yidhaahdeen lawlaa unzila ilayhi malak fayakunu macahu nadiira aw yulqى ilayhi kanzun aw takunu lahu janna yaأkulu minha waqala الظaalimuuna in tatabicuuna ilaa rajula masxuura bay yidhahdeen. nin la sixro waalanuun ayaa daba socotaan. laakiin waxaasoo dhan ilahay baa radiyey subxaana wa tacaala. waxyaabaha ay ka horgeynayeen waxaa ka mida inay dacaayad ku furaana inaan aakhira jirin. aidaa mitna wakuna turaaba wacidaamana ina lamabcuuثuun aw aabaؤuna اlأwaluun ama dalika rajcu baciid meel kale ay ku tilmaamayeen. waxaasoo dhanna ilahay baa wada radiyey subxaana wa tacaala oo u tilmaamay bacثu bacda almowt waxaa loogu talagalay dee dadku xumahan ay dunida ka samaynayaane tirada badan leh iyo hadhow inay sidaa un lagu wada sinaado qof waliba mar intuu dhinto un de waa xukum isku wada mid a. kii kunka dilay iyo kii aan waxba dilin geeridu way wada haleelaysaa. idan maxaa inagoo tilmaaminay siiradii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam iyo xilligii dacwadu calanka ay noqotay ama kor loo qaaday oo ay ka baxday dadkii hoos hoos loogu sheegayey iyo muwaajahadii ama ka hor imaatinkii ay kala hor yimaadeen nimanka quraysheed oo ku saabsanaa siyaabo kala gedisan. aynu soo tilmaamnay markaasi inuu ka mid ahaa jees iyo ku-cayaayar ay ku cayaaraan, beenin iyo qosol lagu qoslo, shubahaad la soo arooriyo iyo mugdi la geliyo oo la isku dayo in diinta dadka mugdi laga geliyo. waxyaabahay adeegsadeen waxaa ka mid ahaa markaa iyagoo isku dayayey inay u diidaan dadku inuu qur-aanka dhagaysto. waayo qur-aanka oo ilaahay hadalkiisiiyo subxaana wa tacaala cid garanaysaa afkan uu ku soo degay hadday dhagaysato waxaa shaka la-aana inuu raad weyn ku reebayo. waayo de waa kitaabu hidaaya, waa kitaabkii alla ugu talagalay subxaana wa tacaala inay dadkani ku hanuunaan. waxay arkeen markaa qur-aanku raadka badane uu ku leeyahay mujtamaca iyo sida uu u raadaynayo. sidaa awgeed ayay waxay door bideen in ay isku dayaan inay dadka u diidaan inay dhegaystaan oo dadkooda wax magaratayga iyo meelahaasi oo dhan inta la ururiyo haddii la arkaba nebiga calayhi salaatu wasalaam oo qur-aan akrinaya in lagu buuqo oo qaacida ay qaateen ah haddii uu isagu hadlo idina ka dhacaana hadla uun bes cidi kala maqli mayso waxba waa la iska kala tegaya waxba la dhegaysan maayo markaa. waa ka ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanku tilmaamaya leh waqaala aladiina kafaruu laa tasmacuu lihada alqur'an walgaw fiihi lacalakum taglibuun. ilaahay baa wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala kuwii gaaloobay ba waxay idhahdeen qur-aankan ha dhegaysanina ee walgaw fiihi ku buuqa ku qayliya uun. hadday sidaasi dhacdo lacalakum taglibuun waxaa laga yaabaa inaa lacalakum taglibuun inay ka guulaysataan ayay u badan tahay. bale ahlu siyarku waxaabay soo wariyaan ragga badhna inay intay qabteen xiiro meelahaas ninkii nadar binu xaarita la odhan jiray inuu warku tiri kuteena soo ururiyey
oo meeshii uu nebigu fadhiisto calayhi salaatu wasalaam israa wax ka sheegba isna yidhahda anna sheekooyin kaloo fiican baan hayaa oo boqorradii beershiye iyo waxoodii sheeko xariirtoodii oo dhan intuu soo ururiyey ayuu yidhahda aniga iyo moxamedka eegee baa sheeko fiican waana ka ilaahay ku tilmaamaya bay mufasiriintu tilmaamaan wa min annaasi man yashtari lahwa alxadiidi liyudila can sabiili illah calaa kulli xaal waxaasoo dhamme waxay ahaayeen nooc laysugu dayey in looga hor yimaado diinta oo loo diido oo ka ugu yari uu yahay in la buuqo oo la qayliyo oo loo diido dadku inay diinta dhegaystaan waxaa kaloo bilaabmay isaguna nooc cadaadisa idihaad in la cadaadiyo oo haddii wararkan badan ee waxba ay tari waayaan ficlan in gacanta la ysula tago cadaadiskani markaa inuu lababa ku dhaco nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo inuu ku dhaco dadkii kale ee ahaa markaasi muslimiinta dadkii soo islaamay nebiga calayhi salaatu wasalaam waynu leenahay in badan isaga waa ka haybaysanayeen ama waa ka baqayeen ama qof sharaf loo agtooda mudnaan kale buu ahaan jiray haddana waxaa jiray un qaab la isugu dayayo in wax loo dhibo oo maalan qisadaynu ka soo warramayna abilahab ee waa beentii dawladdaba socdayba dee waa nooc dhibta ka mid ah nin weyn oo nin weyni daba socdo una wuxuu leeyahay in ay tahay wuxuu sheegaba waa beentii ama waxba kama jiraan ama umu jamiil waxay samaynaysay arwa bintu xarb gabadhii la odhan jiray waa gabadhii abilahab iyaduna waa tii heesaysee lahayd mudammamun abayna wa diinahu qalayna wa amra wacasayna weedh caynkaasi oo kale ah ay culammadu xadiidku wax ka yidhaahdaan waxbaa ka ururaya marka la eego sanadada badan ay kusoo aroortay waxa ay tilmaamaysay yani waa mudammam bay lahayd waa mid la ceebeeyey mid la heereedaarteeyo aanu diidnay diintiisana waanu nacnay arrinkiisana waa caasinay saas bay ku dhawaaqaysay bale iyadoo waxaa la socota waa tii abibakar u imanaysay lahayd abibakarow ee saaxiibkaa miyuuna soo caayay qad haja yani ma gabay caayuu saaxiibkaa noo soo tiriyey bay leedahay qur-aankay doonaysaa inay gabadh ka dhigto tabad yada abilahabinkii soo degay ayay diidantahay inuu qur-aan yahay oo ay rabtaa inay tidhaahdo gabay hija iyo gabay caayiya inuu nebigu usoo tiriyo kale abibakarna wuxuu lahaa maya waana tuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam xadiiskii saxiixu lbukhaariga ku yaalay alaa tacjabuuna kayfa yasrifu allahu canii shatma quraysha walacnihim yashtamuuna mudammama wayalcanuuna mudammama waana muxammadun buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam meedan arkayn buu lahaa nebigu sida ilaahay uu ii dhaafiyey caydii iyo nacdashii quraysheed waxay intaa caayayaan buu yidhi mudammam mid la yidhaahdo iyo ay nacdalayaan aniguna moxamed baan ahay mudammam ma ihi kula caayey ama kula haydaarteeyey ma ihiye kula mahadiyey baan ahay oo moxamed baan oo ilaahay subxaana watacaala magacayga kaas buu ka dhigay waxaad ka garan kartaa yani dhibta la gaadhsiiyey maalan nebiga calayhi salaatu wasalaam